السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي كسو دبادة مركلية مقال عصب وأنا عبد الرشيد عبلابي muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa 3 faa'iido oo kugu kalifaya inaad subax waliba soo toosto aroortii hore. Cumar bin Khadaab Allah ka raali noqday waxa uu yiri in la tooso aroortii waxa ku jirta barako, sidaas daraadeed markii aad qabanayso hawl fara badan waxaad arkaysaa in uu waqtigu ka hiliyo oo kugu yaraado iyadoo uu waqtigu kuu saamixi waayo hawl badan oo aad rabtay inaad qabato. sidaas daraadeed shakhsiga waxa habboon inuu soo tooso subaxii hore si uu ugu faa'iideysto waqtigiisa uuna wax badan ku qabsado si uu u noqdo shakhsi guuleysta. faa'iidooyinka ay leedahay in la tooso subaxii hore: inta badan dadka u soo toosa shaqo maalmeedkooda aroortii hore ayaa dareemaya in maalintii oo dhan ay ku mashquulsan yihiin shaqadooda daruuriga, kuwaas oo ugu dambeyntii ku guuleysanaya inay qabsadaan shaqadooda. Laakiin haddii aad sugto ilaa iyo galabtii ama duhurkii sidaa u qabato shaqo, waxaad arkaysaa in uu waqtigu kugu yaraado shaqadaaduna aad ku fashilanto. Aroortii hore waxaad leedahay awood oo aad ku qabsan karto waxaad doonto, balse haddii uu waqtigu sii socdo awoodda jirkaaga way sii yaraanaysaa, maxaa yeelay maalintii oo dhan waxaad bixinaysaa amarro, waxaad la shaqaynaysaa dadyo kala duwan kuwaas oo aad ka faa'iideysanayso waxyaabo badan ilaa iyo aad ka gaarto meesha ugu yar inta maalinta ka dhiman. Subaxii hore waxaad awood u leedahay inaad qabsato waxyaabo badan oo la taaban karo, halka marka aad hurdada ku daahdo aad la bilaabanayso bilow qaldan, kadibna aad dareemayso fashil iyo hoos u dhac oo aad maalintii oo dhan ka sheekayso. Haddii aad tahay mid aanan awoodin inuu tooso subaxii hore, waxaan kuugu waaninayaa inaad qaadato talooyinkan soo socda. wax ka bedel jadwalkaaga oo muraajac ku samee. Isbuuc kasta waxaa waajib ah inaad fiiriso systemkaaga sida aad u isticmaasho waqtiga iyo waxaad qabsatay. waxaad helaysaa xal ku aadan wixii kuu qabsoomay iyo waxaan kuu qabsoomin. subaxii yeelo barnaamij. inaad qaadato go'aan ah inaad soo toosto aroortii, waxaa waajib ah inaad yeelato subaxii barnaamij kaasoo aad doonaysay inaad soo qabatid aroortii. haddii wax barnaamij ah aadan lahayn, waxaa isku daydaa inaad samayso jimicsi ama inaad wax akhriso. markii aad dhageysatay talooyinka aadka u qiimaha badan, hadda ma doonaysaa inaad soo toosto aroortii? fadlan inooga reeb fikirkaaga qaybta commentiga. intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa axbaabi. inta aan ku kulmayna muuqaalka xiga waa aniga Cabdirashiid Ablaabe oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.